Gobolka Gedo waxa uu ku dhow yahay isku darka wadamada Netherland, Belgium, Qatar, Singapore iyo Hong Kong. Dalalkaas markii la isku geeyo baaxadoodii guud waa 84,000 oo kiiloomitir, halka Gedo oo qorow yahay 85,000 oo kiiloomitir. Dalalkaas waxaa ku nool isku dar tiro dad ah oo dhan ilaa 41 milyan oo qof. Isku darka dhaqaalahooduna waa 2.2 trilyan dhaqaale kor u dhaafaya. Waa dhaqaale wax yar ka hooseeya isku darka dhammaan dhaqaalaha dalalka qaaradda Afrika. Baaxaddu waxba sooma kordhiso, xitaa tiradu waxba sooma kordhiso. Maanta waxaa wax soo kordhiya waa tayada dadka, aqoonta iyo ilbaxnimada bulshada haysato. Singapore waa wax ka yar 800 oo kiiloomitir oo isku wareegsan. In ka badan 100 jeer buu gobolka Gedo ka weyn yahay. Singapore baaxad ahaan hadda waa 100 jeer wax ka badan. Haddana hal shirkad oo Singapore laga leeyahay baa quudin karta oo dhaqaale ahaan kaafin karta Gedoyinta ku nool gobolka Gedo oo ka baaxad weyn shantaas dal. In midkood ka nolol iyo dhaqaale sareeyo asiga iyo guud ahaanba Soomaaliya, waxaana sababay waa tayada dadka ku kala nool. Waxaa xusid mudan dalalkan laba meehe saddexda kale inay ahaayeen maxmiyo gumeysi soo maray oo reer Yurub gumeysteen. Waxaa kaloo xusid mudan in Singapore gaajo iyo faqri iyo kaneeco la daalaadhaceysay Soomaaliya xur ah. Xilligaa oo Malaysia mideysnaayeen ay waxtar xumo darteeda ay u sheegtay inay ka baxdo Malaysia oo aysan dooneynin inay ka sii mid ahaato. Maantana iyadaa ka dhaqaale iyo nolol sareysa. Waxaan Gedo u soo qaatay waa gobol cajiib ah oo tusaalaha ugu dhow Soomaaliya ka bixin kara. Waa gobol baaxadiisa xog laga hayo. Waa gobol abaaraha iyo dhibaatooyinka nololeed ay ku badan yihiin. Waa gobol webi aad u biyo badan uu dhexdiisa qulqulo. Waa gobol istiraatiijiyad ah oo laba dal xuduud la leh.